kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Bilan Radio wararka maanta aan idiin hayno waxaa kamid ah shirka golaha wada tashiga qaran oo maalintii labaad galay maxay tahay ajandayaasha ugu adag ee maanta la filayo in looga hadlo shirka ciidanka NISA oo howlgallo dad lagu soo qabqabtay ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Balad Xaawo ee gobolka Gadow taliska ciidanka xoogga dalka oo beeniyay in ay weerareen ciidanka amar qaata sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa waxa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta 17aad guutada 5aad qaybta 20aad ah oo howlgalkiisii operation-diisa u socda xabad lagu bilaabo waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha gobolka kolonyo ku jira xabad lagu bilaabo iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo bilaabay xal u raadinta beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan maamulka Puntland isma qalaragti wanaagsan daawadayaal mar kale waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha Koobaad sanada 2022 waxaan ku bilaabeynaa shirka golaha wada tashiga qaran ayaa maanta waxa uu galay maalintii labaad iyadoo la filayo in maanta uu noqdo maalinta ugu xasaasisan ee shirkaas waxa maalintii labaad oo xiriir ah teenada afsiyooni ku galay ee magaalada Muqdisho shirka golaha wada tashiga qaran oo ay Muqdisho ku yeelanayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda shanta maamul goboleed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka oo shalay furmay ayaa diiradda lagu saaray amniga iyo sidoo kale dardargelinta doorashooyinka daafurnaanta iyo daadejinta xilliyada la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ayaa la filayaa in golaha wada tashiga qaran ay dood adag ka yeeshaan caqabadaha haysta doorashooyinka dalka sida looga gudbi karo iyo sidoo kale waqtiga rasmiga ah ee la soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka iyo indhaha beesha caalamka ayaa ku sii jeeda shirka golaha wada tashiga qaran kaas oo lagu jaangooyn doono howlaha doorashooyinka si looga gudbo xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya ciidanka NISA ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gadow ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgalladan oo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen qaar kamid ah xaafadaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gadow ciidamada ayaa baaritaano ka sameeyay kuna sameeyay gaadiidka noocyadiisa kala duwan dadweynaha qaar iyaga oo mararka qaarna baaritaano ku sameeyay guriyo bartilmaameed u ahaa ciidamada saraakiisha nabad sugidda ciidanka NISA oo howlgalka hogaaminaya ayaa waxay sheegeen in ujeedkeedu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada isla markaana looga gudbi lahaa ama loo soo qabqaban lahaa dhalinyaro lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab sidoo kale waxay sheegeen in howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa inta laga xaqiijinayo amniga degmada iyo sidoo kale deegaanada hoostaga si bulshada degmada ay nabad iyo amni ugu noolaadaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gadow oo dhowr jeer ay ka dhaceen dagaalo ayaa hadda waxa ay kamid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan ee gobolkaas Gadow taliska ciidanka xoogga dalka waxa ay beeniyeen inay weerar ku qaadeen ciidamada cad ah sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere taliyaha xoogga dalka qaybta 27aad Generaal Axmed Maxamed Cali Sowtreedisho ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ku jiraan howlgalladooda caadiga ah isla markaana ay weerar jidgal ah ku sameeyeen si la mid ah weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan taliyaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ciidamada laga been abuuray isla markaana uu sheegay in iyaga weerarka lagu qaaday waxana uu tilmaamay in arintaas ay tahay waxba kama jiraan in iyagu weerarka ay qaadeen sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in wixii dhaqan iyo xalin ah looga baahan yahay odayaasha dhaqanka sidoo kalena ciidamada ay yihiin kuwa ka madax banaan siyaasadda cid kasta oo ku soo duushana ay iska qabanayaan isagoo cadeeyay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay magaalada Beledweyne operation-adii iyo howlgalladii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkoodu ahaa iyadoo la fulinayo loona tallaabo qaaday horena loo fulin jiray haddana loo tallaabo qaaday ayaa waxa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta 17aad guutada 5aad qaybta 20aad ah oo howlgalkiisii operation-diisa u socda xabad lagu bilaabo waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha gobolka kolonyo ku jira xabad lagu bilaabo dadka qaarna ay leeyihiin xabadda iyaga bilaabo taasi ma ahan alla ka cabsi ma qof walba maxaan ku yiraahdaa inuu maxaan ku yiraahdaa walaalkiis
oo run sheega laga rabaa annaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkan ka dhalanay meel kale kama iman Soomaaliyeedna waana loo run sheegi karaa waana gar qaadanaynaa waliba laakiin ciidankeena iyo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo gudoomiyihii gobolka iyo maxaan ku iraahdaa iyo hay'adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan misana maxaan ku iraahdaa waxyaabaha qaar la sheegay ma qurux badna waxaan leeyahay dadku waxay leeyihiin dhaqanka maxaan ku iraahdaa Hirshabeelle waxa ugu sareeya maxaan ku iraahdaa ugaaska ugu sareeya iyo imaamka ayaa ugu sareeya iyaga laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah annaga siyaasad shaqo kuma lihin laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo al-shabaab waa iska qabanayna waa muhiim taas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad uga xun yahay waxyaabaha meelaha ka jira waxaan leenahay wixii siyaasadda ha xalliso wixii maxaan ku iraahdaa dhaqanana dhaqanku ha xalliyo hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad Darnaal Axmed Maxamed Cali Sotreedisho ayaa imaanaya xilli deegaanka qowlad ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kuwa uu hogaamiyo sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere kuwaas oo ka soo horjeeda ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa bilaabay xal u raadinta beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen deegaanadii lagu dagaalamay ee ka tirsanaa gobolada ka tirsanaa deegaanada maamulka Puntland ujeedka safarka madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdigiisa ayaa salka waxa uu ku hayay sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa dirir soo noqnoqotay oo deegaanadaas ku dhaxmartay laba beelood oo walaalo ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa deegaanada waxa ku soo dhaweeyay qaybo ka mid ah isinada Puntland kuwaas oo iyaguna ka qayb qaadan doona dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo la hadlay odayaasha iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in uu tagi doono deegaanadan in uusan tagi doonin ilaa deegaanadan laga gaaro xal waara maadaama dirirtu ay soo noqnoqotay sidoo kalena aan la aqbali karin in dagaal ka sii socdo deegaanadan oo sheegay in dawladnimada ay muhiim u tahay baanu nimi nabadgelyo in wixii halkan ka dhacay wax ka dambeeyaan ay dhaceen waxaanu nimi inaanu u tacsiyeyno wixii ku dhintay in Ilaahay naxariistana siiyo waxaanu nimi inaanu u ducayno wixii ku dhaawacmay in Ilaahay u boogadhayo inta ka bacdi nabadda aanu maanta u nimi waxaan la qabaa hadalladayada iyo aaraadaanu ku soconnay saaxiibadii iga horreeyay ayaan la qabaa wixii canaana mas'uuliin baanu nahay oo dee dadka kan dawladda u ahaado mas'uuliinta waa qaadanaynaa maanta ka garnaqsan mayno laakiin waynu wada lahayn oo ismada iyo kuwa maqan iyo kuwa joogaan runtii aad bay u dadaalaan waliba aad baanu la socday aniga labadan wasiir aad baanu la soconay oo ay ku dhibtoodeen oo ku rafaadeen oo waliba waxyaabo badan oo ay weheliyeen dayacay waxaan maanta dhacayna oo iska qadar Ilaahay cidana ma jeclayn dawladana ma jeclayn mas'uuliin kalena ma jeclayn dadka ay wax kala gaadheen ma jeclayn ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa xalay waxa ay ku hoydeen deegaanada si ay u dhameeyaan xiisadda colaadeed ee ka taagan halkaas guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Bilan Radio YouTube-ka waa inaga intaas daawada si gaar ah ayaan kugu mahadcelinaya haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka si aad noo dhiirigelisid fadlan muuqaalkeena like saar sina share garee mahadsanid daawade